maalinta bini aadanka la kulansiin doono ee rabbigooda ay la kulmi doonaan waa maalintee waa yawm alfasli waa maalinta la kala saari doono weeyaan kii fiicnaa iyo kii xumaa baa la kala saari muuminka iyo munaafiqa la kala saari ahla aljannahi ahla naarka la kala saari kii wanaagsanaa iyo kii xumaa baa la kala saari yawm almasii yawm alqiyaama labada weliga ha iloobin buu ku yidhi labada weliga ha iloobin allihii ku abuuray ha iloobin mar walba xasuusnow oo qalbiga ilaahay ku hay saddexda qof ee ugu horeysa uu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam ee naarta lagu tuuri doonana waa saddexdee وعالم وتاجر سخيها هي نن مجاهد هاي الله ملين ينو دينو دنتي صدق عمل هو وين بالله إيمان يان كانوا مجاهد بوها كان وحوها عالم بوها ومضوا علم جبر يقاربوها كان وحوها مارك تاني السخي مالقبين أيوه هاي حوله سوب حنجري صدق ده عمل اللي مادن إلهي هرتي صدق ده عمل بوحة كلنا مارك تاني شرك بكلنا لأن مركز إلهي أردنا يا هذا وادو دمتي واد صور دمتي لكن أنا قدرت وباد صور دمنه إن لقاير هذا هبل وانين دقاليها أنا أيادو صور دمتي وأنا اللي هذا كنا قارب هذا هاي القرآن أخرس في عن أما واعد ومدى وعدي أياد هاي ودتكو أي هذا الجسد جيستان وعدي كمركز جديد يسد ومدى وحوش جيسا ما دو حبر يسدنا أنا قدرت وماد بريني هبل وانين عين كاسو ومدى وحوش يجو عرب فصيح يا لقول يا هل لقول إذا إصلاحيد كنا وحال أورنا يا أديكوا نن مالك بحياة هيدا مال كستو خير حولها وتكون بحينيسي هذي مساجد هاي هذي مدارس هاي هذي أيتام هاي لكن واحد بحينيسي وهي بالوسط هل لقوا يرادو سدح دي الناس واللي يرادون كدوش يديه أكتر إذا واحد كل يدين والنار تكتور الله ورندونا حديث كأبو هريرة رضي الله عنه مركو شيء جري وأوي جري وكعي جري ودعي جري ولا كعين جري وأوي جري وكعي جري markay naftu ay ka bixi inay ka baxdo halis u gaadho ayuu xadiidka nabiga ka maqlay uu sheegi jiray lillahi wa inuu hada qofka muslimku waxa dadka u qaban ilaahay dartii ugu qabo waa inaad ku doontaa amalkaaga aakhiro amalkaaga adduunyada ha ku doonin abdullah ibn mubarak rahmatullahi alayhi ayaa lagu yiri manin naas dadi ayay yihiin noo sheeg markaasuu al ulama dad hadii weydiiseen dad waxa weeyaan وعلماء وادتك إلهي علمك سيقانا وادتك إلهي يقانا آخرة يقانا شريعة الإسلام كيقانا دتك أصوم بعضدا مركز اللي فمن الملوك كوا هدي عددك الشيكتي هذا بقردنا أيهين مركز يود الزهاد وادتك الزاهدية الدوية كالزاهدي الدوية بدبركيك واحد دولي الله وحبا أنا نؤركيني مركز اللي ما التواضع تواضع أنا بلنوشك تواضع محويحي مركز يود التكبر على الأغنياء dadka hantiilayaasha oo agtaada aan waxba aad u arkin oo agtaada qiimo aan ku yeelan taas tawaaduc leeyahay buu ku yiri markaas lagu yiri faman sufaha dadka sufahaduna ay yihiin man gaabka aqliga aan lahayn wuxuu alladhi yaakulu diina bid-dunya wa qofka magac diineed xambaarsan laakiin magaca diineed haddana dadka adduunyo kaga doonay wajigiisa diineed adduunyada uu isticmaalaya kaasa safiha buu yiri فنحسن dadka hadaan wax u qabanayno hadaan wax u sheegayno hadaan wax barayno hadaan ihsaan u sameeyno hadaan infaaqinayno waxay naga noqonaysaa waa ilaahay dartii waxa kale uu ku yiri ninkaas inankiisa markuu la dardaarmayay dhibaatada dadku ay adiga kugu sameeyaana ha xasuusan buu ka yiri waxaad noqotaa qof saliim sadri qalbi fiican noqo qalbigaaga waa inuu ahaada nadiif muuminka qalbigiisu غل يا حسد يا بغض وعينه كهذا صليم وكي النبي لها حديث في السنن نين أهل الجنة نقول صوبح دونا نسحابة كمدا صوغلو سو ويسيستي صحابة نكي بي فيريين هذانا مالين لبعض والنبي يقول نين أهل الجنة نو صوغلي دونا إسلام نكي با صوغلي هذانا مالين صدحات والنبي يقول نين أهل الجنة نو صوغلي دونا إسلام نكي با صوغلي عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما ayaa intuu socday buu ninkii marti u noqday wuxuu aabahay baan isa soo diinay in marti qaad markaasoo marti qaaday aabihiina ismay soo diideen wuxuu rabay kaliya inuu arko bal ninkani acmaasha uu ku mutaystay inuu noqdo ahlal janna ha soo aragtid buu ku yiri ha soo aragtid buu islaha iyaku khayrkay ku kala dayanayeen khayrkay u kala badinayeen khayrkay iskaga dayanayeen inagu laakiin maanta maxaan ku kala dayanaa naga zamankeena dadkii adduunyo u tartamayaan adduunyo u kala badinayaan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ayaa lagu yiri sif lana dunya
adduunyada cali oo bal noo sifee markaasuu ku yidhi ma asifuhaa maxaan iigu safeeyaa awaluhaa canaa wa aakhiruhaa fanaa wa xalaaluhaa xisaab wa xaraamuhaa cadaab buu ka yidhi maxaan adduunyada ka sheegaa buu yidhi awalkaygu waa canaa waa tacab waa daal bal dadka maanta adduunyada jooga eega qof walba waa daallan yahay inankii baa daallan oo aabbihii baa daallan oo faqiirkii baa daallan oo maalqabeenkii baa daallan oo madaxdii baa daallan oo shucuubtii baa daallan oo hooyaa daallan oo inantii baa daallan oo jaamicigii baa daallan oo kii maalka haystaa daallan oo kii faqiirka ahaa baa daallan kii miyiga joogaa daallan kii diyaaradaha waday baa daallan awaluhaa canaa buuhi cali bn abi aalib adduunyada haddaad ii weydiiseen awalkaygu waa daal waa tacab buuhi waa tacab waa daal maba nasanaysaanba war ma la nastaa ma nasanaysid wa aakhiruhaa fanaa maxaa ka dambeeya dhammaad ama adiga dhiman ama adduunyada kaa hor dhaqaaqi xalaaluhaa xisaab teeda xalaal kugu soo gashayna xisaab baa ka dambaysa wa xaraamuhaa ciqaab teeda xaaraan kugu soo gashay walciyaadu billaahna waa cuquubo adduunyada dusheedii aakhira waa lagugu ciqaabi xaaraanteeda man istuqniya fiiha futin waman iftaqara fiiha xasan buu yidhi adduunka dusheeda ninka ilaahay hanti uu siiyana hantidaa uu ku fidnoobi xisaab iyo daal iyo rafaad iyo cidhiidhi iyo walwal iyo walbahaar iyo estarees iyo walaahow unbuu ku jiri ka adduunyada aanan haysana faqiirka noqdayna murug unbuu ku jira isaguna murug midna xisaabteedii baa dawakhisay midna walwalkeygii baa hayo halkeen ka helaada unbuu hayaa soo sidaa maaha adduunka iskaga meedayneen asxaabta nebigu aakhiraday u tartamayeen jannaday u kala badinayeen wa fii daalika falyatanaafasahi almutanaafisuun maadaamuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu 3 maalmood oo isku xigta uu yidhi nin ahlaljanna inoo soo geli doonaa cabdulaahi bnu camar wuxuu raadinayaa ninkani wuxuu ku mutaystay jannada ma sabab 3 habeen markuu martuu ahaa wax acmaal oo ziyaadaah oo inta iyakuba ay qabanayeen dhaafsan markuu ka waayey ayuu yidhi aabbahayna ismaan soo diidine 3 maalmood buu nebigu yidhi ahlaljanna inagu soo bixi doonaa adigaana noo soo galee camalka aad ahlaljannaha ku noqotay ee maqaamka aad ku mutaysatay baan rabay inaan kaa arkee wax acmaal oo dheeraad oo annakaadna dheer tahayna ma arka buu ku yidhi salaadiina waa 5 waqti baa tukataa saacadaha dambena witridaad u kacdaa habeenkiina cibaado badan kaama muuqato salaata leylkaagu ma badno munaajaadkaagu ma badno quraan akhriskaagu ma badno markaasuu yidhi huwa maa ra'ayta buu yidhi intaa aad khayrka intaa aad igu aragta unba anigu aan sameeyaa wax kalama sameeye buu ku yidhi markuu ka sii jeestay buu u yeedhay kaalay mid baa jirtay buu yidhi adiga kaa qarsoon oo aanad ogeyn waa maxay habeenkii ma seexdo ilaa waxaan seexdaa anoo dadka muslimiinta iska cafiyaan seexdaa buu yidhi qofna caloolxumo calooshaan ugu hayn salaamatu sadri saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin cibaadadoodu ma badnayn salaadooda soonkoogu ma badnayn laakiin qalbigoogaa fiicnaa iyaka salafku waxay odhan jireen abi bakr sidiiq radia allaahu canhu saxaabada rasuulka iyo ummadda nebi maxamed soon iyo salaad maaha wuxuu ku dhaafee bishayin waqara fii qalbihi nuur qalbigiisa ku dhibcay ayuu abubakar ummadda ku dhaafay qulubtooda ahayd qulub nadiifa marka dhibaatada dadku ay kugu sameeyaan ha xasuusan iska saamax iska cafi qazawaadkii nabigeena sal alla alay slam qaswad ka mid a ayaa markuu nebigu khanaa'imtii u qaybiyey saxaabada nin ayaa yidhi markaa qismadan la qaybiyey lagumana cadaalad falin ilaahay dartiina loogama jeeda buu yidhi hadalka ayaa lagu leeyahay nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam balu fiirsada nebiga sicatu sadrihi qalbigiisa balladhkiisa eeg iyo baaciisa cabdulaahi bnu mascuud radia allahu canhu ayaa hadalkaa maqlay war maxaa tidhi qismadan la qaybiyey xoolaha sidan loo qaybiyey lagumana cadaalad falin oo cadaalad laguma qaybin
ilaahay wajigiisana loogama jeedo buu yidhi hadalkaa ka warrama intuu leegyahay dembi ibnu mascuud radia allaahu canhu wallaahi in ma qarinaya nebigaan u sheegi buu yidhi markaa buu nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam nebiga wejigiisii baa bedilmay markaa buu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi in lam yacdil illaahu warasuuluhu faman yacdilu buu nebigu yidhi ilaah iyo rasuulku hadday cadaalad iyaku samayni waayaan oo cadaaladdu xaggooga ka imani weydo ayaa kaloo cadaalad samayn buu rasuulku yidhi ereygaa markuu nebigu yidhi ayuu yidhi walaalkay muuseba calayhi salaam intaa in ka badan baa la dhibay oo uu sabray buu rasuulku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaaladiina aadaw muusa fabara'ahu allahu mima qaaluu wa kaana cinda allaahi wajiiha walaalkay muuse calayhi salaam intaa in ka badan bay qoomkiisu ay dhibeen u sabray aniguna waan sabrayaa buu rasuulku yidhi markaas salaamatu sadri labadaa weligaa wuxuu ku yidhi ha xasuusan labana ha iloobin ilaahay ha iloobin daarta aakhirana ha iloobin buu ka yidhi allah wadaar alaakhira allah waa kii ku abuuray ku jirsiiyey daarta aakhirana waa daartaan kulligan u wada noqon doona xaggeeda weeyaan allah waa kii ku abuuray muxuu ku abuuray macrifadiisu ilaahay ku abuurtay cibaadadiisa ilaahay ku abuurtay aakhiraduna waa daartee waa daarta addoommaha ilaahay uu ku sugayo ee addoommaha lagu xisaabi doono weeyaan inna yowma alfasli kaana miiqaata yowma yunfakhu fi الsuuri fata'tuuna afwaaja وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا إلهي قرآنك كغورما يا أوليهي إن يوم الفصل كان ميقاتا ما لنت بنا آذن كلا كل السين دونو الرب قود إلا كل مدونان وما لنت ويوم الفصل وما لنت لك لصاري دونو ويان كيف عناء يكيح ما بالك لصاري مؤمنك يا منافق لك لصاري أهل الجنة أهل النار لك لصاري كي وناك سنايا كي حما بالك لصاري يوم المصي يوم القيامة لبدا ولقا هاي لوبن بوكوري لبدا ولقا هاي لوبن الله يكو أبوري هاي لوبن مر والبحث وصنو وقلبك إلهي كو هاي